بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصومالية دمان تود فيديو قنطا وندون تدمان وحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كلا إدليه رمضان الكريم. انت كدب وحن تعسيت تيران يله عن أدريا وقالوا ذاقيا دمان ددوينها reer maakhir meel kastaba ay joogaan dal iyo dibad waxaan aad ula qeereysanahay hooyo badan oo ku goblantay waxaan aad ula qeereysanahay gabadh badan oo asay loo saaray waxaan aad ula qeereysanahay hooyooyin ka xamilooyinka ah ee la gowracay ee xasuuqa lagu sameeyay waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geeridu waa loo dhashaa qof aan dhimanaynin ma jiro ilaahay baa quraankiisa ku yiri kullu nafsin daa'iqatul mawt qof walba wuu dandaminayaa sakaraadka iyo xanuunka waana la dhimanayaa laakiin waxaan aad uga xumahay boqolkiiba boqol sida lagu laayay ee ay dadkaygu ku dhinteen baan aad uga xumahay taasna waa qadarka ilaahay ee kama xumi in aan ka xumaadana hadeer waa qalad balse waxay ku socotaa fariinta tan waa fariin furan please bifadlan waxaan idinka codsanayaa dadkayga asxaabtayda Facebook in ay share gareeyaan oo ay ila wadaagaan fariintaana gaarsiiyaan dadka reer maakhir meel kastaba ay joogaan aniga iyo saaxiibaday oo duubayna ayna noo xiran tahay weerka guduudan aad u jeedaan ee tacsida hadalkii adiga dhameeyay aan wax yar baan ku darayaa waxaan leeyahay horta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhammaan shacabkii lagu xasuuqay degmada tuulada af urur ee ka tirsan gobolka bari hoos timaada degmada galgala waxaa leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gaar ahaan waxaan ugu tacsiideynayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka guriyadeen dadkani waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo waxaan ilaahay qadarinay may dhicin laakiin waxa geeriya oo laba geeriyaada oo saddex geeriyaada dhibaatadii halka ka dhacday digashadii loogu daray oo cid kale aan inoogu darinin kuwa aanu lahayn cid beedin ku xigaan oo ehelkiina ay noogu dareen laakiin dib ma leh waxa la yiraahdaa xabaalba ninkii laba qarax tirta dibtani maanta ma dhacdeen haddaan ragga iyagu aanay noqon dhagax haddaanay noqon dhagax tixeed haddaanay noqonin meel walba magacuyaal bay ka yihiin hadday noqoto Puntland dhagax bay ka yihiin hadday noqoto Somaliland dhagax bay ka yihiin hadday noqoto federaal dhagax bay ka yihiin waxa la yiraahdaa ummad baa xaqoodii la xaqiray oo laga dhigay 0.5 annaga 0.0 baan nahay dadka 0.5 ka meelahaas istaagan waxay yiraahdaan xaq ayagii baa la xaqiray laakiin annagu 0.0 aamusan baanu nahay waxaan leeyahay war meesha iska qaada nin walba xabaashiisa isaga qarax tirta war reer maakhirow ama warsangeliyow maanta godkiini baa laydinku soo galay wallaahi shalay af urur bay heedeen maanta baran bay imane oo dhahar bay imani oo hadaaftima iman oo ceergaabay iman oo meel kasto aad degtaan bay iman haddan maanta tan dhacday aan lagu hortagin dhibaatada maanta nagu dhacday ee maanta annaga na soo gaadhay ummadda way soo wada gaadhay laakiin waxa dhibaato ah annaga dadkayagii dhaawaca ahaa heer waxa loo gaadhay in isbitaalada laga xidho heer waxa loo gaadhay in la yiraahdo dhaawicina dhayda iyagoo magac meesha ku tagay wuxuu noqday dhulkayagii dhul lacag lagu gurto wuxuu noqday dadkayagii dad la iibsado oo la iibsado nolosha lagu iibsado maanta waxaanu taaganahay weer casinaan xirano because gayaan ba malihin gabar warsangel gayaan ma leh gayaan malihin barkas hadaan gayaan leenahay ragga iyagu maanta karaama yeeshan baanu gayaan yeelanayna waxaan kale aan baaq u dirayaa gabdhaha warsangel ciilaanka marsada gabdhaha warsangel guriyaha ka shaqeeya na waxa la yiraahdaa raggu hadaanu dumar lahayn haddaan raggu dumar lahayn dib jir buu noqon lahaa reer walba oo wax noqda naag baa ka dambaysa na meesha ka kaca maanta weer casba idin xina gabadha maanta asaydu u xiran tahay iyo adigu waxba isma dhaantaan gabadh walba asay baad xiran doontaa way raggiina waxay noqdeen dhagax dixeed bilaadhiga oo aan damiir lahayn kii Somaliland taga wuxuu noqday nin isagu qayraad tagay kii Puntland tagaana wuxuu noqday mid qayraad tagay kii federaal tagana wuxuu noqday gashaanti aamusan gashaanti aamuska lagu meheriyaa maanta haddaan dhibaatada dhacday aan laga hortagin maanta dhibaatada dhacday haddaan laga hortagin wallahi guriyaha la isugu imanaya warsangalow shalay bay ahayd ma jeerteen maantaanu SNM la dagaalameynay dekada boosaaso ee gobolka bari bay ka soo digi jirtay hubku waraabinayo walaalkaamee ma jeerteen kuwii la baxay bay ahaayeen shalay bay ahayd Xasan Daahir Aweys inoo yimi oo akhwaan wata aan anagu iska saarnay shalay bay ahayd oo SNM oo qabiil dana
oo Soomaali oo dhana aanu gacantayada ku xoraysana dhulkayaga oo iyagu intay noo yimaadeen baryana gula heshiiyeen maanta se dhagax baanu nahay dhagax dixeed oo meesha ka kaca haddaydan dameer siiyeen wallahi oo billahi oo tallaahi gabdhaha iyagu gayaan male meerka casoo noo xidhan wallahi baanaanu dhigay waa sida aad sheegtay weerka noo xirani mid aan furayno ma aha mid aan furi doonana ma aha dadka waxaan tusayaa wax yar baan rabaa inaan tusayo waxa jirtay dagaal ka dhacay Puntland oo al-shabaab soo galeen waxa lagu saaray wiigag baa lagu saaray dhul ma jeerteen ay degaan 7 sano waxay sii socotaa galgala waa mashruuc waxaan idin sheegayaa in ay jiraan askar jooga guryahooda oo boosaaso iyo gaalkacayo iyo garowe jooga oo mushahar ku qaata galgala kama xumi dadkaasu dadka ay ka arkeen baan ka xumahay ee farfadhiya ee ii soo taagan ee Puntland baanu nahay Somaliland baanu nahay ee dadkoodii la xasuuqayo wariyaa shalayto naaga xaamilooyina baa la gowracay wiilal yaryar oo arday jaamacada ka soo baxay saraakiil baa la laayay maanta yaa sugaysaan in la laayo caruurihiina iyo xaasaskiina baran idin fadhiya iyo kuwa hadaaftuma idin fadhiya baa la gowracayaa intaas ku bushaaraysta hays oran Mareykan baa joogtaa hays oran Yurub baa joogtaa hays oran Imaaraadka joogtaa ama Sacuudigaad baa joogtaaba waxaan idin sheegayaa warsangeliyo dhulka in aad iska qaadaan waxa weeye wixii dhiig loo kaca meesha